xidhiidhka labada dhinac la jaro safiiradii la kala ceshado 2018 ilaa waqtigan aynu joogno waxa sidaasi ku kala maqnaa safaaradaha labada dawladood waxa istaagay marka xiriirkii diblomaasi oo labada dhinac ay lahaayeen waxa intaas sii dheeraa marka in uu jiray oo gabi ahaanba uu istaagay xogtii muqaabaraadka ama sirdoonka oo ay isdhaafsanayeen dhinacyadan iyo xiriirkii ganacsi ay wada lahaayeenba iyadoo xilli hore ay ahaayeen sida la sheegay labada dhinac ee xogta dhanka sirdoonka isdhaafsiga ugu badan arinta kale ee shakiga iyo kala aragtiyo duwanaanta labada dhinac keentay waxa ugu horeeya kow aragtida reer Turki ee qadiyada Falastiin labo aragtida Turkiga ee kacdoonkii gugiga Carabta iyo saddex aragtida Turkiga ee arrimaha khilaafkii Khaliijka saddexdaasi aragtiba marka aad u fiirsato labada dhinac way ku kala aragtiyo duwanaayeen oo way ku kala sigsanaayeen waxa intaas si dheer marka wixii ka dambeeyay 2010kii markaasi oo gaas aad u tiro badan oo lagu qiyaasay 122.4 bilyan oo cubic meter laga helay badda Mediterranean-ka oo Israa'iil iyo meelo kale oo ay dawlado kale ay doonayeen inay ka faa'iideysteen laakiin meel ay adag tahay juqraafi ahaan in heshiis laga gaaro ayaa gaaskaasi dabiiciga ah laga helay sida aan ka warqabno marka shirkadaha doonaya in ay shidaal ay qodaan ama maalgashi ay sameeyaan iyo dawladaha kaleba ma jecla in ay maalgashi ay ku sameeyaan dhul muran oo badan uu ka taagan yahay isla markaana hadhowto iyaga dhibaato ku noqon karaya ka maalgashi ahaan marka la eega dhibaato u keeni karaya dhinaca qaanuunka iyo dhinaca milkiyadana dhibaato uga keeni karaya 2018 marka waxa la sameeyay guddi ka kooban wadamo dhowr ah wadamadaas oo sida la sheegay ku jira